kusoo dhawo tab iyo muuqaal cusub sidee flashkaaga looga tirtiraa dhammaan fayraska ku jira isla markaana loo soo bixiyaa documentiska ka qarsama haddaba muuqaalkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa sidee fayraska flashka hadiskaha iyo kombiyuutarkaba looga tirtiraa iyadoo la badbaadinayo xogta kuugu jirta aan gudaha u galno channelka haddaad ku cusub tahay subscribe dheh asxaabtaadana la wadaag fikirkaaga noogu reeb qaybta hoose. ugu horeyn aan gudaha u galno oo aan aragno flash ama hadiske computerka ku xiran isla markaasna u baahan in laga tirtiro fayraska ku jira aan aragno qaybaha laga fiiriyo iyo in flash ama hadiska uu computerka ku xiran yahay computerkaaga tag oo right click dheh kadibna open dheh ama double click dheh hadba tii ku fudud kadibna wuxuu ku keeni doonaa computerkaaga hadiskaasha ama drives ama flash wixii ku xiran hadiska computerku waa kaydka caloosha ama kaydkiisi oo loogu talagalay xogta inuu kaydiyo laakiin qaybtan kale oo local edaas ay ku qoran tahay waa flash ama hadiska computer ku xiran oo hadii la bixiyo aad dareemaysid inuu baxay computerka oosan ku si toos ugu rakibnayn okay oo hadii la soo galiyana aad ogaa doontid inuu soo galay kadibna daatadiisa ay timid haddaba uu soo galay waa kana iska xir waa flashkan ama hadiskan hadba kay naqataba isku mid waa labadooda isku qaba loo soo galiyaa waa mid ka rabna inay xogta ku jirta aan ogaano kadib inay virus leedahay in kale fur oo waxaan ogaan doonaa markaan furno gudihiisana calooshiisana aan tagno waxa ku jira halkan sida kaaga muuqata waxa ku jira folders dhamaantood oo shortcut ah ama virus oo galay isla markaasna u baahan in viruskaas laga saaro si xogta ku jirta loo badbaadiyo xogtaas inay u noqoto mid nadiif ah dibna loo isticmaali karo wareyn aan fiirino maxaa ka qarsan xogtan oo kale markii saan dhacdo waxyaabo badan oo qarsanaa jiray view ku dhufo kadibna option dheh halkan waxaa ka doorataa change folder and search option ida gudaha usii gal waxaan arki doonaa qayb kale noo gey doontaa qaybtan qaybeeda hoos oo dhan iska dhaaf laakiin qaybta ugu sarreysa search and view ay ka kooban tahay view ku dhufo qaybtan ayuu ku keenayaa qaybtaani dhowr qaybood ay ka kooban tahay laakiin laba qayb waa hadda qaybta oo jeeg saaranta qaybna waa qaybta kale oo aan idin tusi doono oo la rabo hadhowtana si jeeg ka saaraanin haddii jeeg ka saaranta xogta baa unbaa qarsami doonta qaybtan hoose qaybtaas hadda ay saaran tahay waa soo muuji files iyo folderada aan haysto laakiin qaybta ka sarreysa haddaa saartid waxa la ay wixii folderkan ku jira ama wax badan oo virus haddii ku jiraan wuu qarsamaa laakiin qaybtan jeeg saar mar kasta oo hubi inay jeeg saaran tahay kadibna apply dheh oo okay dheh okay iska dheh kadibna qaybtii hore nagu soo celiyey oo aan ka tagnay oo flashka dhexdiisa so muhiimaddu waa inaan qaybtan on folderadan waxa ku jira aan tirtirno close dheh computerkaaga desktopkiisa ama shaashadiisa ku soo laabanay soo kacsa browser mid ka mid ah browserada kuugu jira oo qor softwarekan la dhahayo shortcut virus remover oo ah shortcutka aan rabno inaan uga oo softwareka aan rabno inaan uga saarno shortcutka ama viruska ku jira flashka ama hadiska hadba kii cilad ka haysato click dheh halkan ayuu ku keeni doonaa oo wuxuu ku sii doonaa linkiyo kala duwan haddii kan ugu horeeya aan ku dhufano wuxuu noo geeni doonaa website softwarekan website kala duwan ku jira kaliya waxaan raadinay download ma leeyahay haddaa download ka weyso waa ka laaban doonaa laakiin aan raadino waa free softwarekan meel kasta uga tagtid back dheh ama dib u laabo aan qaybo kala fiirino oo softwarekan laga heli karo qaybahan oo dhan fiiri qaybtan kala fiiri qaybtan kala fiiri qaybtan PC maadaama window aan la tacaamulayno qaybtan qayb manfaacaysan ay taa dhici karta ku dhufo waxaa laga yaabaa markaa ku dhufato inuu leeyahay isla markiiba qayb ah degso qaybtan degso ayuu leeyahay sida kuu muuqata wuu ka fiican yahay kii hore aan soo arkaynay waa degsan kartaa okay aan soo xirno laakiin halkan waxaan kugu siinayaa laba website oo diyaarsan oo qaybta hoose ee videogan faalladiisa ah keli doontid mid ka mid ah keli ku sii wuxuuna ku keeni doonaa meel aad wax ka degsi kartid kan hadda kuu muuqda wuxuu leeyahay downloadkaasaa ku dhufanaysaa oo ah deji softwarekan ii deji kadibna waxaa ii dhigtaa computerkayga meel ka mid ah wuu kuu deji doonaa waxaana arki doontaa qaybtaas hoose inuu ka deganayo website kale aan fiirino oo kan la mid ah oo asna qaybta hoose linkiga yaalla ku dhufo websitekan hore u kacsanay kaliya wuxuu u baahan yahay in refresh la refresh dheh oo ku dhufo adiga laakiin kaagama baahan halkan wuxuu ku leeyahay download
wuxuu ku siinayaa cabirkiisa iyo inta uu yahay size ahaan qaybihiisa hoos oo dhan waa fiirin kartaa kaliya wuxuu kaaga baahan yahay isagana inaad degsad ku dhuf waxyar kadib asagana wuu soo dega doonaa saa u jeedid labadoodaba midka horena waa soo degtay kan hadduu deganaya kaliya hadda muxuu kaaga baahan yahay marka la dejiyo xaggee aadiyay ama aad ka helaysaa gantaas waa furi kartaa oo waxa ugu tegaysaa downloadka ayaa ugu dhex tegi kartaa laakiin soo deji oo shaashada kombiyuutarka kusoo laaba my document kale kusoo sii download kale kusii kadib halkaana ku keenayaa date modified date ugu dambeeyay dooro si software-da kuugu dambeeyay xilliga ugu dambeeyay aad dejisid aa heshid ama waqti ugu dambeeyay week hore week dambe ka harto halkan wuxuu kuugu muujinayaa software-iskan xilli kala duwan soo deji right click dheh copy mid kamid ah soo qaado kadibna iska soo xir oo shaashada imaw oo meel kamid ah besti ku dheh halka markaad timaado wuxuu ku siinayaa software-kii oo compressed ama WinRAR ku jira haddii zip kuugu jirana waa la mid haddii WinRAR kan kuugu jirana waa la mid labadu waa isticmaal kartaa haddii WinRAR kuugu jirana internetka ka soo degsi kartaa si hadda step-kan marnay right click dheh oo extract file dheh extract file markaad tiraahdo halkaan uu kuu keenaa okay dheh wuu furmayaa folderkaas uu noqday iska caadiga ah isaga laftirkiisa sii fur waa kana shortcut-kii software-kii right click dheh kadibna copy dheh soo qaadan kartaa soo deji oo desktop-ka right click ku dheh oo paste dheh wuxuu ku sii doonaa warbixintan macnaheedu waa maxay file-kan hore u jiray oo desktop-ku saaran yahay adii hadda kuma dhihi doono waayo adii hore uma aadan soo degsin laakiin ani already waad isticmaalaya iska soo xir okay aan gudaha u galno oo aan isticmaalno software-kan oo aan ku cilad bixinno ciladihii naga haystay flashka ama hard-diskii viruska ku jiray ugu horeyn isaga laftirkiisa right click ku dheh run as administrator si oo wax kasta oo amar kaaga aqbalo waxa ku soo bixi doonta meel yes ay ku qoran tahay iyo no yes dheh halkaan ay ku keeni doonaa pen drive iyo computer hadduu ka cilad ka haysato iyo haddii pen drive ka haysato oo flash ama hard disk laga wadaa wax USB ahaan computer ku soo galaya laga wadaa labadaba waa ka tirtiri kartaa viruska ku jira anaga laakiin ka rabnaa hard disk ama flashka noogu xiran ayaa rabnaa inaan ka tirtirno viruska waa kana trisendigan hore noogu xiray horaan u soo aragnay waana furi karnaa hadda laftirkiisa mar kale u aragno waxa ku jira shortcut-ka oo kuwana virus shortcut ayaa ka buuxa soo xir oo waxa ku soo laabtaa pen drive-kan dooro halkan kore qaybo badan uu ka kooban yahay laakiin qaybtan selected device ay ku qoran tahay fur oo waxa furtaa halkan wuxuu ku sii doonaa E iyo D waa kaydka ama caloosha computerka laakiin aniga qaybtan aan rabo waa E oo ah waxa ku xiran ama flash ahaado kadibna scan dheh wuxuu ku leeyahay muubta inaad datadaasi kadibna yes dheh halkan wuxuu ku keeni doonaa marka dhammaan wax alla ay wixii shortcut wuxuu ku leeyahay scanka waa dhameeyay okay iska leedahay wuxuu ku keeni doonaa dhammaan wax alla ay wixii shortcut ee computerkaaga ku jiray oo virus ah kaliya qaybtaas hoose ayaa jack saaraysa kaliya inaad hubisid dhammaan waxaan in la tiro oo ku talinaa recommended ayaa horteeda ku qoran oo ku leeyahay jack saar kadib maxaa dhihi doontaa iska delete karay ka bixi meesha ka faaruji recovery inuu ku sameynaa marka wixii file yes wuxuu sameyn doonaa waxa la wixii shortcut inuu tiro faylashi iyo folderadina uu nadiif ka dhigo daatadiina sideedii hore oo nadiifka okay dheh daatadiina sidii hore oo nadiif loo helo soo ujeedada website-ka qaybaheedii uu nadiifiyay meeshii waa caddahay xogtiina uu dhameeyay laakiin waxa hubinaynaa computerkaaga ku laabo flashka ama hard-diskii fur soo ujeedid daatadii waxay noqotay mid nadiif ah folderadii waxay noqdeen kuwa nadiif ah xogtoodina mid kasta sidii caadi loo wada kicin doonaa oo markaa ku dhufato xog shaqeynayso oo la kicin kara noqonaysa folderkina uu nadiif yahay shortcut-ka iyo wixii viruska laga bixiyay kaliya soo xir oo ku soo laabo software-ka xataa computerkaaga aad adeegsan kartaa kaliya ma ahayn meesha kaliya aad adeegsanayeen ama flash ama hard disk lagu soo xiray waxa aad adeegsan kartaa xataa computerkaaga hadduu virus ku jiro oo aad adeegsan kartaa inaad isaga tirtirtid marka waa software fudud qof kastana oo baran karo inaan ku xireyn qofkii inuu IT yahay ama field kale oo barto kuma xir adii xataa baran kartaa waa mahadsan tahay muuqaalkan si wacan ee aad u dhageysanayso asxaabtaadana la sii wadaag